بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يالعا تاريخ وتهي لحظة بيش شناد لحظة بيش كوبية تمناد سنة كلاوكم لواتني أفر كون آدن أفرت بيش شناد كون أفر بغل أفرتني اللح وحين أوبالله سنين حلقة اللحية لواتناد برنامج فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤاشا كواد عاوة أهنا سؤاشا أفر بغل يصدح تمناد سائلك وحو الله هاي شيخ qof asalkiisii nin ahaa oo naag iska dhigay ma la guursan karaa? بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. waxaa lagu yidhaahdaa luqada carabiga sharu lbaliyati maa yudxik baa la dhaha. balaayo waxaa ugu shar badan tii kaa qoslisa. marka nin naag iska dhigay nin kale ma guursan karaa? lama maqlay miya? nin naag iska dhigay nin kale ma guursan karaa? marka hore su-aasha imaanaysa waxay tahay maxaa kuu baahiyey naag asalkeedu nin ahayd oo isbedelay guurkeeda maxaa kuu baahiyey waay. masalada labaad, jawaabta masaladeedu waxa weeye ama arrinta labaad, haddii uu ninku naag iska dhigo shareecada waa nin, naag maa. sidaas daraaddeed haddaad guursato nin guursaday baa tahay. isbeddelkan lagu sameeyey ee bini aadamku ku sameeyey wax macnaa ma leh. midda kale inuu ruuxu abuurkii ilaahay abuuray beddelo waa dembi weyn oo lacnadii ku soo aroortay. waana inta badan sida qur-aanku inoo sheegay waa amar shaytaan lagaga amar qaadanayo shaytaanka. sida ilaahay aayadda qur-aanka ku sheegay wala aamurannahum fala yugayirunna khalqa allah. ibliis wuxuu yidhi iyo shaytaan aadam carruurtiisa waan amri markaasay abuurka ilaahay bedeli doonaan. nabigana sal alla alay wasalam fi saxiixayn wagayriha waxaa ku soo aroortay inuu lacnaday. marka cid lacnadan oo ilaahay abuurkiisa beddeshay inaad guursatay iska dhaafi xataa la saaxiibiddiisa iyana shareecadu ogoleen. shareecadu dumar guursay ku tiri iyo rag guursa kuma dhih. ruuxanina waa rag. ta kale shareecadu waxay ku tidhi dumarka laftooda mid diin la guurso, fadfar bidaati diin. mid diin la'aantu ka gaadhayba inay abuurka ilaahay beddelay oo fisqiga iyo fujuurka halkaa ka gaadhay guurkiisu ma bannaana. islaanna ma aha, dumarna ma aha, waa rag. hadduu towbad keenana waa in laga celiyo wixii lagu sameeyey oo ninnimadiisii loo celiyo, oo hurmuunaadkan iyo xubnihiisii wixii laga beddelay hurmuunaadkan lagu duray ee dumarka u ekaysiiyey waa in dib loo celiyo. hadduusan toobad keeninna dee mama uusan toobad keeninba. marka su-aashaasi su-aal ruux muslima ka imaan ma aha. malaha wax weeye su-aalaha qaar baa waxay u yimaadaan ama wadaadka ku tijaabi ama dadka kaga qosli baa laga yaabaa inay u imaanayaan. laakiin ruux muslima nin ahaa oo naag iska dhigay xataa uma mohon karaba. guuruu guursada iska dhaaf xataa hunguriba kaa geli maayo. wallahu aclam.
جزاك الله خير يا شيخ. سؤال آخر بقولي أفريقيا سائل كان وحولي هاي شيخ مسجد جماعة سيارتها لكن سفكي سهري آن الهلين يا مسجد آدو جماعة بدن لكن سفكي سهري آن شيخ مسجد جماعة سيارتها لكن سفكي سهري آن هليو يا مسجد جماعة سوء بدن تهي لكن أنا سفكي سهري هلين كيبا في عنين كتكل ma arkin labada fadli wax isgarab dhigaya labada fadli baa ku soo arooray masjidku markasto uu jamaacadiisu badan tahay ka jamaacada yar uu ka fadli badan yahay xadiidka Abu Daawud ka ku tusaya nabigu sallallahu alayhi wasallam salaatu ar-rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'a ar-rajulayni azka min salatihi ma'a ar-rajul وما كان أكثر فهو أحب إلى الله نينك صلاة كليجي أو تكذو وحكفض بدن صلاة أو روح لتكذو صلاة أو هل روح لتكذنا وحكفض بدن مدو لبل لتكذو مركز تو أصيبتنا الله واسيج عليه وحديث سكن والنبي صلى الله عليه وسلم تاوى جماعة ومركي بدتها ويكسي في عنده safka hore lagu tukadana ahadiis aad far badan baa ku soo aroortay oo fadli badan ku tilmaantay oo saxiixaynka iyo sunanka iyo qeyrkood ku yaala fadaa'il far badan iyo ajir far badan oo kala duwan waa loo sheegay wax marka isgarab dhigaya oo haday isqabtaan safka hore iyo masjid jamaaca badan haday isqabtaan kee la hormarinaya ma arkin laakiin marka nusuusta la fiiriyo safka hore fadligiisa iyo ajirkiisa nusuusta ku soo aroortay baa badan ajirka lagu sheegay baana badan ta kalena culimadu waxay yiraahdaan fadiilada cibaadada lagu sheegay haday cibaadada gudaheeda ku jirto iyo haday wax ka baxsan ku jirto midda cibaadada gudaheeda ku jirta mudan oo cibaadada ku dhagan marka safka hore cibaadadii buu kamid yahay waa meeshii cibaadada aad u taagnay laakiin jamaacadan faraha badan way ka baxsan tahay sida qaalibka marka waxa fadli badan fadiilada cibaadada ku dhex jirta yaa mid ka baxsan ka fadli badan marka nusuusta la fiiriyo safka hore in aad hesho ayaad moodaa inuu ka fadli badan yahay jamaacada badnideeda wallahu a'lam جزاك الله خيرا شيخ. سؤال آخر بقولي شنو تبناد شيخ حاس أيام قرصدي كدي تضاب بلاد يبر أي واحد شيء عنو قاس شكي أيا قالي حاسن أيام شكي قاس ماشي كمتشر وقلت الماء أضل الشيء وينات كشكي ذا وخلت معايا يا لي المو هدو kulankii ninka iyo haweenaydu ay kulmeen 6 bilood haday ka soo wareegto 6 bilood iyo wax ka badan uu ku dhasho waa ilmo sharci ah 6 bilood wax ka yar haduu ku dhasho ilmahaasi ninkaasi ma dhalin arinkana waxay dhacday xilligii khulafaa ur-raashidiin Umar radiyallahu ta'ala anhu wa Uthman ibn Affan oo haweenay 6 bilood ilmo ku dhashay baa loo keenay kadibna waxay damceen in ay jeedlaan ama rajmiyaan oo xad ka oofiyaan xad zina Abdullah ibn Abbas baa marka wuxuu ku yiri arinkaas ma lihidin saxna ma ilmuhuna 6 bilood uu ku dhalan karaa quraankaana ku tusaya buu yiri markaas wuxuu kala soo baxay xukumka ah inuu ilmuhu 6 bilood ku dhalan karo laba aayadood oo quraanka kamid oo markii la isu geeyo xukumka faa'iideynaya jira aayada hore waa mid Allah tabaaraka wa ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran ilmaha inta uurka lagu sido iyo inta uu naaska nuugayo 30 bilood bay isku tahay saas ay aayadu tiri 30 bilood waa sanad iyo sanad iyo 6 bilood waxaan dhici jiraa 2 sano
2 sano iyo 6 bilood waay soo saas ma haddana waxaa laga hadlay muddada uu naaska nuugayo والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين dumarka waalidka ah waxay ilmaha nuujiyaan 2 sano oo kaamil ah cidii rabta inay nuugmada dhamaystirto marka 2 sano waa nuugmadii 30 sanana maxaa sheegay waa nuugmadii iyo maxay iyo inta uurka lagu siday oo wada socota 30 bilood isku ah markaad ka goyso 2 sano oo nuugmadii maxaa soo hadhay 6 bilood waa 6 bilood uurka marka ilaan muddadii uurka lagu siday iyo muddadii nuugahayay baa isku 30 bilood ah haddana muddadii uurka waxa la xadiday haddana muddadii nuugayo 2 sano ah uurkii maxaa u soo hadhay marka uurkii 6 bilood baa u soo hadhay labada ayadu marka la isu geeyo iyo Abdullah ibn Abbas kala soo baxay in uu uurku muddada ugu yar ee uu ilmo ku dhalan karo inay tahay 6 bilood fuqahadu waxay yiraahdaan iyo 2 laxdo 2 ilbiriqsi sidaasayna jumhuur culama qabaan hadduu marka 6 bilood iyo wixii ka badan ilmuhu ku dhasho waa ilmahaagii inaad ka shakidana waa qalad inaad tuhuntana waa khalad firaashkaaga iyo gobashaadii buu ku dhashay wuuna ka suuroobaa oo muddada iyo wixii ka badan ilmuhu waa ku dhalan karaa 7 bilood baad ka hadlaysaa marka 7 bilood iyo ka badan baad ka hadlaysaa marka shakigaasi meesha kuma jiro ilmahaagu waa ilmahaagii waaye adaa dhalay gabadhana ha tuhmin ilmahaagana hayso wallahu a'lam جزاك الله خيرا شيخ سؤال 416 شيخ هدي ولا شيء يا حاسكيغا xurguf ay ka dhaxayso wala shay ma dhihi karaa guriga ha imaanin anigoo meesha ay joogto ku xiriirinaya walaasha waa qaraabadaada way xaaskuna waa xaaskaagi qaraabaduna xiriirin bay leedahay xaaskuna xusnul ishray leedahay dhaqan iyo mucaamalo wanaagsan lagu la dhaqmo haddaad isku hayn kartood meel ku wada hayn kartood heshiisiin kartana heshiisii waa sida fiican haddaad heshiisiin weydo walaasha oo xaaska la heshiin weyda ama isku dhaxeen guriga loo dumin maaye iyadana meesheeda ku xidhiidhi guriga iyo reerkana hay laana labadii maslaxaba markaa waad kulmisay soo ma gurigii iyo reerkiina ma dumin walaashaana waad xidhiidhinaysaa meesheedaad ku booqanaysaa kaga warhaynaysaa hadday noqoto marka sidaas si dhaanta haddii la waayo waa sida fiican weeye oo labadii maslaxaba lagu ilaalin karo wallahu a'lam جزاك الله خيرا شيخ سؤال 417 شيخ waxaan weydiinayaa hadii aad tihiin salafiyiin sanad walba Nairobi waxaad ku dhigtaan mu'tamaraad waaweyn oo salafkii iyo nabiga midna aan ka sugnaan maxaad annaga noogu haysataan mawliidka kuwali haddaad salafiyiin tihiin sanad walba Nairobi waxaad ku dhigtaan mu'tamaraad waaweyn oo salafkii iyo nabiga midna aan ka sugnaan maxaad annaga noogu haysataan mawliidka laba arrimood oo islahayn ayuu isu keenay jawaabtu marka la soo gaabiyo midna nabi maxamed bay ka sugan tahay sallallahu alayhi wasallam midna nabi maxamed kama sugna in wacdiga loo kulmo nabi maxamed bay ka sugan tahay tacliinta iyo wax isbaridda in loo kulmo la isugu yimaado nabi maxamed bay ka sugan tahay quraanka akhriskiisa iyo mudaarasayntiisa in loo kulmay nabigay ka sugan tahay sallallahu alayhi wasallam dikriga in la isugu yimaado la mudaaraseeyo ilaahay la wada xuso nabigay ka sugan tahay sallallahu alayhi wasallam laakiin mawliidka in ihtifaal la isugu yimaado oo la damaashaado oo xoolo la uruursado oo la qasho oo waqti xadidan loo sameeyay nabi maxamed kama sugna sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisina kama sugna saddexdii qarnina laguma hayo qolada ugu horeysay sheegtay waxay yiraahdeen qarnigii afraad buu bilowday
markii 300 iyo ziyaado laga joogo nabi maxamed hijradii sallallahu alayhi wasallam ayaa yaani mawlid la isugu yimaado bilowday nimanka bilaabayna niman shiicay ahay marka waxaan sameeynayno dadka in wacdi la isugu yeero sidan oo kale cilmi la kala faa'iideysanayo waxay ka sugan tahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi sidaas aan u sameeynayna laakiin mawlidko la isugu yimaado waa bidca aan salahayno nabigana aan ka sugnayn quraankana aan ku oolin quruntii saddexdaad iyo salafkiina aan laga haynin saas daraadeed waxaan nidhi waa bidcaha la iska daayo laba shay oo isla maaha midna shariicadu ku sugan yahay midna meel looma hayo wallahu a'lam jazakallahu khairan sheekh su'aasha 418 sawirkan wuxuu leeyahay sheekh waxaan arkay wiil dhalinyaro ah oo sujuudsan laakiin qaarkiisa dambe uu bannaan yahay kadib ayaan u sheegay inuu qaarkiisa dambe bannaanaa salaadii miyuu soo celinayaa culimada waxay qabaan jumhuurtoodu awrada in la asturaay inay tahay sharti kamida shuruuda salaada oo awradaasi hadaan la asturin kas uu ruuxu u baneeyo inay salaadiisu burayso bay isla ogolyihiin ama jamaahiirtoodu ay qabaan awrada ragguna waa nooc awrada dumarkuna waa nooc way kala duwan yihiin markaasay haddana awradii waxay u qaybiyaan alawra almughallada iyo awra almukhaffafa awro adag iyo awro fudud haddii marka ruuxu salaadiisii uusan awradii asturin ama uu u qastaba kas uu u sameeyo inuu isagoo salaada ku jira awrada baneeyo una qasto kas u sameeyo salaadiisu way buraysaa waana inuu soo celiyo haddii uusan u qastin oo si ku talagal la'aan ama kama ah awradu ay u faydanto marka waxay kala qaadayaan muddada ay awradu bannaan tahay inay dheeraato iyo inay gaaban tahay hadday gaaban tahay oo markii ay awradii ka faydantayba uu soo qabtay midna isagoo taagan bay maradu ka dhacday ama dabeel baa intay dimid bay dabada u fayday isagoo sujuudsan markiiba uu isdaba qabtay oo markaasuu maradii soo ceshaday waa marka waqti gaaban iyo wax yar umana uusan qastin marka waxay leeyihiin salaadii ma burayso hadiise laakiin muddada awradu ay bannaan tahay dheer tahay marka haba halmaan iyo kamaaba ha u geeyee hadday muddadu dheer tahay markaa salaadii waa buraysaa waa inuu soo celiyay leeyahay mar kale fuqahada qaarkood waxay u kala qaadayaan awrada bannaan matii cuslayd ee muqalladada ahayd baa midda waa sii fududayd ayadana xukunka qaar baa kala duwaya oo muqalladada waxaa la yidhaahdaa raggoo kale saw'ataynka la yidhaahdaa saw'ataynka yacni awrada hore oo xubinka taranka iyo intuu ku fadhiyo iyo gadaal dambe iyo baryaha ayaa la yidhahdaa saw'ataynka inta ilan awrada raggu waxa waa bawdada laga bilaabay ilaa xudunta salaada markay tukanayaan soo maaha ayadii baa markaas u kala baxaysa mid fudud iyo mid culus dumarka iyagana awradoodu way kala baxaysaa markay salaada ku jiraan oo iyadana mid culus iyo mid fudud bay u kala baxaysaa fuqahada qaarna labadaas ay u kala qaadayaan laba xugun bay kala siinayaan warka murtidiisu wuxuu isugu imaanayaa dhalinyarooy markaad tukanaysaan yaa ka dadaala intaad salaada ku jirto inaysan awradaadu bannaanaanin gaar ahaan saraawiisha aad qabtaan marar fara badan adoon is-ogayn ayay shaatiga ama funaanaduna kor u faydmayaa sarwaalkuna gadaal u durkayaa oo hoos u durkayaa marka waxaa bannaan meelihii in la asturo la rabay baa bannaan salaadu inay burtaa marka khatar ah marka inaad ka taxadarto weeye oo aad hubsato in awradii astur lagu yidhi ay asturan tahay si salaadaadu u asaxdo wallahu aclam جزاك الله خيرا شيخ سؤال آخر بقول يسأل تمناد سعيد كان حول يا شيخ أنا دكان قضية أيار روح يقولي كون شيرين إيسري وحان إيري ما هيو وحو يقولي كون كهيسو شن بقول سيسي أنت كلوان كوس ولا بنا يا سيدا اسم الربا
ما الربا ما معاملة صحوة ومعاملة صحصن ويه كونك أوكوها ينا ووديعة يا أمانوي شنطة بقولت كقاعدتين ودين آد كقاعدتين هذا مركز صون نقطة وأصرف هلا إذنكو وده جوجا لا صرف يا شنتي سيبقال بوقادا شنتي كوها دين وكسيني مركز كونكو وأمانو شنطة بقولت كقاعدتين ودين سيدا سينقون إساء وأنا صحوي وحرباكم مجرته والله أعلم. جزاك الله خير شيخ. سؤال أفر بقول إلى وطنات شيخ وحان هاي فيديو إديتر وحان وحكو سمايا برنامج ليراهدو أدوبي أصل كيسا برنامج كان كمبانيغا سمايا وحو وطلع قلي إن لغا يبسدو dad baa baasweerada ka jabiya oo suuqa ku iibiya kuwaas ayaan ka soo iibsadaa ee maxaaraanba. hadda ka hor dhowr goor baan ka jawaabnay waxyaalaha bini aadamku uu leeyahay milkigiisa ku jira waxay u qaybsamaa laba nooc. nooc waa cayn oo wax la taaban karo, nooca labaadna waa manfaco oo waa shay faa'iido leh laakiin aan la taaban karin. labadooduna waa isku xugum. sida caynta la taaban karo loo milkiyo ayaa manfacadana loo milkiyaa. barnaamijkan ama programkan company baa samaystay ama shakhsi baa samaystay, juhdi baa ka galay, waqti baa ka galay, hanti baa ka gashay. markuu diyaariyey waa milki khaasa oo companyga ama shakhsigaasi leeyahay, sida xoola uu leeyahay oo kale waa. waxaad ku qaadan kartaa ama ku isticmaali kartaa ama inaad ka gadato ama inuu ku siiyo kuu fasaxo. laakiin haddaad passwordka jabsato ama mid jabsadayba adigu aad ka sii qaadanayso tuug baa tahay ama tuug kalkaal baa tahay oo midkaa xaday baad adiguna ka sii qaadatay adoo og inuu tuug yahay. haddaad xoog ku qaadatana markaa waad dhacday, haddaad xatooyo ku qaadatana markaa tuug baa tahay. wax alla waxaad ku samaysatoo dhanna waa xaaraan. wax alla waxaad ku samaysatoo dhan iyo waxaad ka heshoo dhan waa xaaraan. sidaas daraaddeed brograamyada ama aabka kambaniyadu leeyihiin la samaysto waa inaad jidkii iyagu ay sameeyeen ee aad ku xalaalaysan lahayd u marto ama ka iibso ama iyagu bilaasha kugu siiyaan. laakiin waxa weeye inaad jabsato oo aad isticmaasho ood xoolo ka samayso ama isticmaal caadi baad isticmaasho waa xaaraan qatci ah waay. waa ama dhac ama waa xatooyo waay. wallahu aclam. جزاك الله خير شيخ. سؤال أفر بقول إلى وطنات شيخ نمبر دول السياي هذا كهر وده كدب أنا انتفاع سنة دولكي أيو غيره دولكي وان أباهنا هاي وانا كالا لابتي أنه وان أديدي أرنكاس الشريعة محاكا قبطا. روح هادو wax sadaqeeyo ama hiba bixiyo oo shaygu bixiyay ciduu uu siinayay gacantiisa ay gasho oo laga gudoomo shaygaasi wuu ka wareegay milkiyadiisu mana ku noqon karo isaguna ma laha ciduu siiyay ee ay ku wareegtay gacantiisa ay gashay baa iska leh kumana laaban karo. waxaa ku tusaya nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiidka saxiixaynka ku yimid ee rasuulku sallallahu alayhi wasallam al-aa'idu fi hibatihi كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ليس لنا مثل الثوب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ملك هبدي سكون قنا يوحو بحي وحو لمدي هاي سيدي أي منتجي أو منتجي سيدي بوحنا يوكله تصالح ملهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثالية تصالح مسلمين يا مؤمنين هدانوا نهاي مثال كي تصالح ملهم سيداس درادد واحد بحسو intuusan ciddii gacantiisa gaadhin oo ballanqaad keliya yahay khilaaf baa ku jira. laakiin hadduu gacantiisa gaadho oo la wareego markaasi waa milkiyo isagu uu yeeshay kumana laaban karaysa.
haddaad marka u diiday oo tidhi ku siin maayo waad ka saxsan tahay adaa iska leh wallahu aclam. جزاك الله خيرا شيخ. سؤال أفر بقول إلى بلاوتناد شيخ بير تفاح كسو بحو أيان كشقيا شقدي waa inaan tufaaxa geedka ka soo gooyo ninka beerta lana wuxuu leeyahay warshad khamriga lagu sameeyo tufaaxa aan soo guro ayaana khamri laga sameeyaa laakiin aniga shaqadaydu waa inaan tufaaxa soo guro oo keli ah su'aashaydu waxay tahay soo gurista tufaaxa dambi miyaa iga raacaya lacagta aan ka qaato sama xalaalba haa dambi baa ka raacaya mushaharka aad ka qaadanaysana waa xaaraan maxaa yeelay Allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala walaa tacaawanuu cala al-ismi waalcudwaan dembiga iyo xadgudubka ruuxa samaynaya ha ugu kaalmaynina waana masaladay fuqahadu u yaqaanaan baycu lcinabi liman yatakhiduhu khamran in cinab cid khamro ka samaynaysa aad ka gaddo waa xaaraam cinda jumhuur alculamaa ama qamandi cid aad og tahay inuu khamro ka samaynayo inaad ka iibiso waa xaaraan limaada lianna waxaad ugu kaalmaynaysaa khamrada samaynteedii gacan baad ka geysanaysaa marka tufaaxii khamrada laga samaynayey adigu haddaad beerto ood og tahay in khamro laga sameeyo warshadda khamrada loo wado oo meel kale loo wadin ood beerto ama waraabiso ama fasho ama midhaha soo gurto khamradii la samaynayay baad qayb ka tahay soo ma ilaan maadadii lagu samaynayay baa adaa wada soo ma adaa keenay adaa hagaajinaya ma soo guray sidaas daraaddeed waa xaaraam waa camal xaaraama shaqadaasi wixii kaa soo galana waa xaaraam laanna nabigeennu wuxuu leeyay sal alla alay wasalam ina allaha idaa xarama shay-an xarama hamanahu ilaahay hadduu shay xarimo lacagta ka soo baxdana waa xarimaa والله أعلم. جزاك الله خير شيخ. سؤال أفر بقول لو تنصدحات شيخ قفك إنه قلين كسميو سنكيسا أو يريو أما أو فنحض الكها إسكحرو دينتم حيك غبطان شركة بين آدم كهدي سيدي إلهي أسمي عادي أهيد سنان أهيد أويه oo uusan ceeb lahayn in wax laga badbadalaayo waa xaaraan sidaas daraaddeed buu nabigeennu sal alla alay wasallam wuxuu lacnaday dumarka jidhka midabkiisa midab aan ahayn ku tallaala wuxuu lacnaday dumarka timahan indhaha korkooda ku yaalla qora oo sidii qaanso oo kale u qoro qurqurxiya wuxuu lacnaday nebigu sal alla alay wasalam waa masalada hadda su-aasha ku saabsane almutafallijaat lilxusni kuwa ilkaha qora si ay fanax ula baxaan ilkahay qorayaan kadibna fanax bay la soo baxayaan ayagoo qurux u jeeda lilxusni buu nebigu sal alla qurux doon waayo markaa wuxuu nebigu ku daray sal alla alay wasalam almughayiraati khalqa allah abuurka ilaahay bay bedelayaan abuurka ilaahay bedelaya xadiidka cabdullahi ibn mascuud fi saxiixayn buu tilmaamay marka sidii ilaahay ruuxa u abuuray hadday sidii bini aadamka loo abuuri jiray yahay waxba ka dhimanayn inuu jidhkii uu yani ama midabkiisii ama siduu ahaa wax ka badbedelo waa tagyiir khalqi illaah waa abuurka ilaahay ood wax ka bedelayso waana xaaraam oo lacnad baa ku soo aroortay marka ma bannaana haddii jidhka sidii abuurkiisa ahaydoo uu ku toosnaa si ka guddisan uu u yaallo ama waa ceeb ama waa xanuun ama waa xubin isdaba marsan markaa waa la toosin karaa maalan ilkuhu waa raaran yihiin maalan oo isdul saaran yihiin waa la toosin karaa soo ma maalan ilig baa maqan waa la buuxin karaa ilkuhu way soo taagan yihiinoo maalan bishintay duraya waa la foororin karaa soo ma aragti shay ceeba hadduu yahay markaasi waa la hagaajin karaa laakiin sidii ilaahay kuwa abuuray hadday saxsan sidii bini aadamka ay tahay waxba kama qaban sideeda u daa marka taa dambe waxaa ku tusaya
حديث عرفجة عند أهل السنن عرفجة نين صحابي أها دقال الذي متكم إذا أيا وحاكوكو أي سنكا كدبنا وحوق الشذي سن أو في الضاء سيلفر أما معدن اللي هذا قلنا قارنا قلنك معدن قلن أبو سنك كشذو سنك دكت معدن قلنك مركا ويتشل حسنت هاي ويأورتي مركا نبي وحوه قال صلى الله عليه وسلم سن ذهب إنه سميستو سنكو ماشو كقاي إنه الذهب قليو نبي قال صلى الله عليه وآله وسلم وحلود اللي شدا هذه شركة عيبي كتالو ولا جب إنكره أو شرعا ويبنانتهاي لكن هذين عيبة هاي نصيدي إلهي آدم هو أبور شرو أبوريه سنكاجا إيو بشمهاجا إيو إندهاجا إيو شركاجا إيو إن هذا أضو قروح رادين يا أدو حكبت دشاي وحرام وتغيير خلق الله وتانا بيقول صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله خلق الله تبارك وتعالى أبورك إلهينا إن لا بدل لما أقول والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخ سؤال آخر بقول الله وطني أفراد شيخ وحن ويدين يا منكو هدو أو ذو بقال أهان قبضوا مية كدية كرتا مهر كذا حج أما عمره إنو جيو منكو بقال أهان هدو أو ذو قبضوا مهر كذا مكدية كرتا حج أما عمره إنو جيو siday culimadu u badan yihiin meherka dumarku waa inay xoolo noqdaan gabadha in xoolo lagu meheriyo ayaa asal ah waana siday culimadu u badan yihiin shay manfaca ah xajisiin oo kale umra in la geeyo kale cilmi in la baro kale quraanka in la baro kale meher ma gashaa way isku khilaafsan inta badanna waxay leeyihiin maya ciladaa ku jira haddii laga maarmi waayo wax kale haddii la waayo markaa waa lagu meherin karaa waxaa tilmaamaya nabigeenna sal alla alay wasalam xadiidkii saxiix albukhaari keyrkii ku yimid min xadiidi sahl ibni sahlin saacidi radia allahu tacaala canhu nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa u timid isagoo saxaabadu la fadhiyaan haweeney baa u timid kadibna waxay ka codsatay inuu guursado nabigu sallallahu alayhi wasallam korbu u fiiriyay hoosna waa u fiiriyay kadibna wuu isaga aamusay waan ku aqbalayna ma dhihin waan ku diidayna ma dhihin gabadhii hadday cabaar meeshii taagni nabiguna u aamusay nin saxaabada ka mid ah soo booda wuxuu yidhi rasuulka ilaahay haddaadan middan dan ka lahayn aniga ii guuri raggu fursadaha ka faa'iidaysigeeda waa lagu kala fiicay ninbaa jaanis ka faa'iidaystay rasuulka ilaahay tan haddaadan dan ka lahayn aniga ii guuri nabigu marka wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam maxaad heli kartaan kuugu guuriyaa maxaad gabadha meher uga dhigaysaa waxba ma haysto yidhi bal wuxuu soo raadi buu wuxuu yidhi waxba ma haysto mana heli karo maradaa hoos guntiga qaydka aan hoos ka qabo basa ayaan xoolo ka haystaa rasuulku wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam maradani maxay qaban buu haddaad ayada siisana adigii baa ka qaawan haddaad adigu qabtana iyadii baa ka qaawan idinma qaybsanto bal wax kale raadi ilaa rasuulku yidhaahdo sallallahu alayhi wasallam iltamis walow khaataman min xadiid xataa kaatun bir ana ha noqotee wuxuun keen soo raadi waxba ma heli karo xataa kaatun bir ama heli karo wuu iska fadhi nabigu isaga aamusay marka wuu iska fadhiistay cabaar hadduu fadhiyey oo loo jawaabi waayay inuu baxuu damcay marka oo iska kacay markuu arkay nabigu isagoo sii socdo barbu u yeedho war balkaale war quraanka maxaad ka haysaa ood ka taqaana markaasuu yidhi suurad hebla kor ma ka haysaa haa kor baan ka haya markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam idhab faqad zawajtukaha bima macaka min alqur'aan kactag buu yidhi quraanka waxaad ka taqaanay inaad bartaan kuugu guuriyey buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam quraanka marka in loogu guuriyo gabadha oo meher looga dhigo goormay timid
mar xoolo la waayey soo ma oo kaatun bir ah xataa la soo waayey markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam quraanka baridiisa meher ka dhigay sidaas daraadeed baa waxay leeyihiin culimada jumhuurtoodu meherku waa inuu noqdo xoolo noqdo xoolaha iyadoo ha ku tasarrufto ama ha ku xajido ama diin ha ku barato ama dahab ha ku iibsato xoolo ay qaadan karto uga dhiga meherka way jiraan fuqahada qaar qaba sida xanaabiladii qaar kamida in manfaacada noocaas oo kala lagu guurin karo ishkaalaadna way leedahay hadhowta waxa adkaan doona xadidideeda adkaan doona laana xajkii xajintiisa yani wax weeyaan waa noocyo kharashka ku baxaya kala duwan xogaa marka xadidida lafteeda ishkaalaad ka imaan doona marka xoolo la garanayo oo cad oo xadidan meherka laga dhigo sidaas aslam ah culimaduna u badan yihiin wallahu a'lam جزاك الله خيرا شيخ سؤال أفر بقول شيء على وطنات شيخ waxaan ku weydiinayaa mar kasta oo iraahdo salaatuku ama ilaahay xus waxba igu dhaha muslimatihi ilaa aan ilaawo wixii aan tukaday ama inta aan Allah xusay waxaan sameeyaa sheekh waa shaytaan waay waa khanaaski waswaaska aha الذي يوسوس في صدور الناس وحلابت هذا أشيكين يكوسو ريدي وحيالهاس وشيطان وتشددي سنة وحوي إن مركو كويلا هذا مسلم بمتي إذا محاد كتوكني إنتات رميستو إن صلاتك تكتور ربا مركو محلو باهي هاي وحلو باهي هاي وركها الرميسانين بيني inuu shaytaan yahayna ogow cadawgaagii way la dagaalan iska celi seedii isaga celin warkiisa ha qaadanin midda labaad weeye ilaahay ku cararo magan gal wa imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'id billah hadduu ku fasaadiyo oo ku waswaasiyo diinta ka qaso ilaahay ku carar إلهي مغنقل تبارك وتعالى مركب بدسو إناد إلهي مغنقش سورة الليلة هذا سورة الناس يا سورة الناس أيا سي خاصة أغسو أرورتي حرسي حركة لغا حرسي حدو شيطان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أيضا نبو حكو سابسنتهاي حرسي حد أتك حرسي حدانيسو شيطان كحرسانيسو شركيس أولي بميتك تشنكي إنسيك إسوغوش وحكا ليتو أيضا لو باهي هاي إن تكون دلاشو تحصينات كأذكارتا لغو حرسي حدو والشياطين تلقى حرسي حدو قلبتي محوى الصباح دي أبيكي مركز سيحانيسو إن يعني وحوى أذكارتا لازمتو مركا قاببو حاجر نصوص تلمانتو والشياطين تلي سيقع عليو تاكو ددال إن شاء الله تعالى صلاتنا هي عبادات كان هاوغتشجين وركن وكليه قال بابا تهي ما حد كتكني لأن النبي حنوشة صلى الله عليه وسلم إنه متكين أو إيماني أو قلبي جيس أو شيكين أو أوليه هي هير وقاري إنه كبشك يسيبه حتى توحيد وكليه ياكو أبوري الله صمد يا أبوري الله رولك يا أبوري الله sidoo kuwada marka dambe wuxuu ku leeyahay alla laftiisa yaa abuuray nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam halka markuu gaaro waxa tiraahdaa aamantu billah ilaahay baan rumeeyay wantahi kana reebto iska celi waxa ka reebtoon iska reeb Soomaali marka shakiga uu qalbiga ku ridayo waswaaskaasina marka la nabigu wuxuu ku tilmaamay inuu yahay dalika sariixul iimaan wa iimaan عدب رسولك صلى الله عليه وسلم إيمانكم معها وحن وكوسو الرديو إيمانك وحلا جودا وحي مركو كوسو الرديو لبسي قاعد لبسانيس عيرين تأدي سك عيرين إيسو قاعد الرميسان لا ده قاعد كهنا إيسو أي إيمانك يا هدوسن إيمانك وكوشير لهين وابد قاعدان لا يسوما إيمانك بأمرك هرتاجن سيدا أصدرات عبادة هذا نكود دال عدو جانا يسك علي oo sida la isaga xiriyo nusuusta iyo quraanka sunnada ay noo sheegin taad barato la dagaalan insha Allah ta'ala wallahu a'lam جزاك الله خيرا شيخ سؤال أفر بغلواتنا لحاد
sheekh xaaskaygii ayaa dhimatay aniga oo aan meherkeedii siin intay noolaydna way diiday inaan siiyo markay xanuunsanaysay waxay igu tiri wax kasta waan kuu cafiyey hadda oo ay dhimatay meherkeeda ma u sadaqayn karaa oo masaajidda iyo goobaha khayrka ma ugu dari karaa waxa ay gabadhu kaa cafiday hadduu meherkii ku jiro oo wax kasta waan kuu cafiyey meherkii ka mid yahay wax loo sadaqeeyo ma soo hadhin laanna haweenaydu meherkeeda way cafin kartaa iyadoo qaadatayna ninka way siin kartaa wax ka midana way siin kartaa kullina way wada siin kartaa wayna u wada cafin kartaa ilaahay qur-aanka kariimka waa ku sheegay fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an marii'a meherkoodii wax ka mid ah hadday raalli idinka noqdaan cuna buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala isagoo unguri mar leh oo boogaadsi leh aayad kalena waa kii lahaa alla tabaaraka wa tacaala walaa junaaxa calaykum fiima taraadaytum bihi min bacdi alfariida meherka marka la qadaro oo la caddeeyo kadib wixii aad raalli isaga noqotaan korkiinna dembi ma ahaanin ka haweenaydu meherkeedu way cafin kartaa hadday cafisay waxaad u sadaqayso marka ma soo hadhin laanna aday ku siisay oo kugu cafiday ayib laakiin adiga xoolahaaga dee waad u sadaqayn kartaa xaaskaaga laakiin xoolo iyadu ay leedaho soo hadhay ood masaajid u gelinayso ma jirto waxeedii way sadaqaysato aday kugu sadaqaysa aday kugu cafiday soo maa haddii uusan meherkeedii gelin waxay cafiday baa soo hadhay markaas waxa weeyaan meherkii masjid la gelin maaye waa la dhaxli haddayna dardaaran ka tegin leanna ruuxu markuu saa u dhinto hantidiisii uu ka tegey markaaba milkiyadu waxay u wareegaysaa dadkii dhaxalkiisa lahaa hadduu wax dardaarmay dardaarankaa laga fulinaya hadduusan waxba dardaarmin markuu saa u dhintaba milkiyadii way wareegtay dadkii dhaxalka lahaa baa markaa ku tasarufaya hadday sadaqaynayaan iyo hadday qaadanayaanba asaga wax loo sadaqeeya marka meesha ma yaalo laba gooraba wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh su-aasha 427 sheekh marka ruux dhinto miyuu ogaanayaa wanaagga ama sadaqada aad u bixinaysid isaga dartiis masaladaasi waa masale khilaafiya maydku ma ogaanayaa wixii wanaagee loo sameeyey ducada loo duceeyey sadaqada loo bixiyey maydku ma ogaanayaa mise ma ogaanayo waa masale khilaafiya culimmada qaar waxay leeyihiin masaladaasi wax nas cad ah oo ku soo arooray ma jiro nolosha ay ku jiraan dadka dhintayna waa xayaatulbarsakh baa la dhahayoo waa nolol ka duwan noloshii adduunyada sidaas daraaddeed maadaama aan nas cad loo haynin way ogaanayaan ma dhihi karno ma ogaanayaanna ma dhihi karno waa masale laga aamusayo sidaa culimmada maray qaarna waxay leeyihiin maya ee way ogaanayaan oo ruuxa wixii loo sameeyey ducadii loo duceeyey sadaqadii loo bixiyey wuu ogaanayaa waxay deliishanayaan laba xadiid xadiistay deliishanayaan waxaa ka mida xadiidka axmed ibn maaji ay soo saareen bisnaadin xasan oo nebigu leehy sal alla alay wasalam ina allaha la yarfacu addarajata lilcabdi asaalix ilaahay wuxuu kor yeelaa addoonka wanaagsan buu darajo u kor yeelaa markaasaa wuxuu leeyahay yaa rabbi annaa lii haadihi tan sidee bay iigu ahaatoon ku helay markaasaa alla wuxuu ku leeyahay biistikfaari waladika laka ilmahaagii aad ka timid ayaa dembidhaaf kuu soo weydiiyey riwaayo kale waxay leedahay biducaa'i waladika laka ducadii ilmahaagu kuu soo duceeyey ayaa darajadan ku heshay marka ilmihiisii u soo duceeyey ee dembidhaafka u soo weydiiyey ayaa loo sheegayaa laakiin riwaayaadka xadiidka qaar ka mida waxaa ku soo aroortay arrinkaasi inay tahay jannada gudaheeda markuu ku jiro ee qabriga ma aha
لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. أي رواية أركض كسارور مركز الدليل ما حياة البرزخ ما حديث كاللباد دليل شدان وحويان وحديث صاري الإمام ابن عبد البر في التمهيد كوري وحولي حديث كاسنا ما من أحد مر على قبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. مجر روح مؤمنة وقبري ولالك مؤمنة صومري وأدونك أوكو قرنشري والسلامية إلا انتو قرته كي قبري أوكو جرى قرني يسلان تكرر الدنيا. حديث كاسي ابن عبد البر باوري وصحيحيي وحاك له صحيحين يا علم بدن وكدم بيسي عراقي القرطبي ابن تيمية ابن القيم السيوطي وحيلين حديث هو حديث سجن وحاك له يكحو تشينيان مركا دتك دنتي للسلام وقبرك قبورت انت تكتو ات سيارتو ات سلاميسو وحلو سلاما السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام عليكم نبت قليو كركي نها أهاتو عليكم حلو استعماله عد كل شيء الله الله يسو أو كم مقليا عليكم لو استعماله عليهم لما ده على عليكم مركو حلليه هالشيء يجو كم مقليا كلا هذا الكون عي وخطاب arrimahaasay markay isku hagaajinayaan culimada dhahaysa wuu maqli karaa meydku isagoo qabriga ku jira salaantuu maqli karaa wixii wanaagay loo soo sameeyay buu ogaan karaa loo sheegi halkaasay marayaan aasaar salafka ka soo aroortayna way ku xoojinayaan masaladaasi marka waa mas'alo noocaas oo khilaafiya axaadiista loo daliishaday marka la fiiriyo wax nas cad oo sariixa oo cumuum faa'iideynaya ma jiro oo tilmaamaya meyd kasta qabriga markuu ku jiro wixii loo sameeyay inuu ogaanayo cumuumna faa'iideynaya sariixna ah saxiixna ah ma aha laakiin xaalad bay ka waramayaan sidaas daraadeed masaladaasi waa masalo khilaafkaasna uu ku jiro laakiin mid baynu kaga kaaftoomiba meydku waxaad u samaysay inuu ogaado iyo inuusan ogaanin maxaa ku jiro xikmad ah laba gooraba haddii ilaahay uu gaarsiinayo oo uu intifaacsanayo oo aakhira iyo qabrigaba uu ku intifaacsanayo inuu ku ogaado inaad wax u soo sadaqaysay maxaa xikmada ku jira inuu ku ogaaday inuusan ku ogaadan isku mid waaye sababta waxa weeye xataa hadduu ku ogaado qabriga miyuu kuugu soo ducaynaa mise wuu kuu soo mahad celinaya yaa shukran miyuu ku leeyahay الروح دنت عمل كيسي واقعي إنه رالي كان نقضه أو كوسو دحيه أو كوم هاد حريه أو لقى مسوقي قبري بكوشرة ساس دراديد إنه أوجادو إنه سن أوجانين واسكمد مسألة سبرك وحوي ونوع مسألة كبحث يا مويانه لكن وح حكم عملي وكررنا يمشيله ساس دراديد والصدقة أو الدحيه عملك خير كي وقاريا بإذن الله تبارك وتعالى إنه أوجادي إنه سن أوجانينا هذا يسكولورين والله أعلم. جزاك الله خير شيخ. سؤال آخر معلومات الاستعداد شيخ waxaan joogaa magaalada Jowhar ma banaan tahay in suuqa laga aruursado raashinka sida galleyda digirta iyo sisinta kadibna la yiraahdo kadibna la kaydiyo oo marka suuqa laga waayo lacag qaaliya la gado arrinkaasi waa arrinka ay shariicadu u taqaano al-ixtikaar ixtikaarku waxa weeye badeecada suuqa looga baahan yahay intaad ururiso ood bakhaar geliso ama tii adiga kuu soo goodo suuqa looga baahan yahay intaad bakhaar dhigtood kaydiso in aad isku daydo inaad ascaartii qiimaha badeecada kiciso
si hadhow markay kacdo aad uga faa'iido arrinkaasina waa xaraam cala saxiix nabigeena waxaa ka soo sallallahu alayhi wasallam xadiidka fi sahih muslim ku yaala wuxuu yidhi laa yaxtakiru ilaa khaati ruux gafsan unbaa badeeco loo baahan yahay oo suuqa xanibideedu uu suuqa saamayn karo ruux gafsan oo khaldan unbaa kaydsada buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam axaadiid iyo aathaar badanna way ku soo aroortay sababtu waxa weeye suuqan iyo badeecadan aad kicinayso ood qaaliyeynayso faa'iidadana saa aad kaga raadinayso mafsado weeye iyo dhibaato aad bulshada u geysanayso adiga waxoogaa baad raadinaysaa laakiin bulshadii baad dhibaysaa haddii badeecadu ay suuqa taallo oo markaa adiga dhigashada aad badeecada bakhaarka dhigatay ayna saamayn suuqa ku lahayn kadibna aad sugto intaad suuq uga helayso dhib male markaa laakiin waxa la diidan yahay waxa weeye badeecadii suuqa looga baahan yahay ama tii suuqa taallay baad intaad uruurisay baad bakhaar gelisay raashin ku timid si aad suuqa u qaaliyeyso ood badeecada u qaaliyeyso kadibna aad faa'iido weyn ugu dhufato midaasi marka wax ixtikaar iyo kaydsiga sharciadu xarimtay waa mafsadada iyo dhibkaasi caamka ka dhalanaya bulshada gaadhaya ayaana loo xarimay wallahu a'lam جزاك الله خير شيخ سؤال أفر بالله وتنسجلات شيخ جبنا بهذا هدول السيو نكاح الآن من الله سيحن كرا هذي أور إيه لا تس المها سبكون كيس محويها سهول سيحن كرتا وناق أجنبيه جبنا مركل لقصيه ويضونن تهاي كومة مهر سنة سوما كلا دونا جبر ضونن يا جبر مهر سنة اللغة العربية واساس يعني مركي ضونن تهاي وحلي هذا مخطوبة لها مخطوبة ويضونن تهاي مركل الجورسدنا الزوجة لهذا وحاس مركا أبهد واكسي ولي جدي واكسي ويكون ضونن تهاي لكن حاسكو معه أجنبي بيكاته شركة هذا ما فيرين كرتيد ما تعبان كرتيد إن أدو قال موت إسكبده لما خلوون كرتيد هوين أجنبي كاته مركي لجو مهريو وعقدي مهر كوالا يقانا أوضعه وحي كدن بي حاس كاجي تاكو بنانت طاهر توامد المها أور قلي gabadhii u doonano loo meherinin buu iska barakay kadibna sidaas oo ilmo ku qaaday ilmahaasi muxuu yahay ilmahaasi waa ilmo sharciya hadda ka horbaan masaa'il lamida ka soo jawaabnay ilmuhu meher kuma dhalanin sooma meher la'aan buu dhashay hadana garacma sababtu maxay tahay waxaan nidhi ilmuhu wuxuu aabihii ku abtirsadaa sharcina ku noqdaa marka aabbaha islaanta u galmoonaya uu isleeyahay xalaal bay ku tahay hadduu ugu galmoodo niyad ah iyo ismoosiis ah xalaal bay ku tahay ilmaha intaasaa ku filan inuu sharci noqdo waana midda nikaaxa faasidka ah ilmaha ku uurgala ay culimadu leeyihiin waa ilmo sharciya حتى وضع الشبهة واحد دهان قال ماذا الشبهة دو كانتو الشبهة دو وحويان إسلام تيسيبا إسلام كلا كقدر ماتي إسلام تيسيبا إسلام كلا وقع كات مركزو إنتو تيسيبو ذي أيو بركي أور بيقاد حاس وما حرقناكو بحرنا لكن تيسيبا كغا خلدنت إلما سمحو نقون وإلما شرعيها sababtu maxay tahay markuu u galmoonay muxuu islahaa niyadeebu ugu galmooday ma ka zinaysu islahaa mise xalaal inay u tahay xalaal xaaskiisii uu moodayo ugu galmooday intaasaa ilmaha sharci ka dhigaya laana saan idin tilmaamay hadda ka horba shariicadu waxay ku dadaashaa ilmaha inta abtir loo heli karo in abtir loo helo inta garacnimo laga badbaadin karo waxoogaa loo jaafjaafi karo in loo jaafjaafo saas way macnaha in la waayo meel la mariyo mooyee waxoogaa yar haddii loo heli karo
ilmaha aabba la'aan la dhigi maayo nasab la'aan la dhigi maayo baynamaa ilmo nasab leh oo dhashay oo gogol ku dhashay oo aabba leh in abtirka loo diido sharcadu meel fog bay geysay ilmahaagii aad dhashay inaad tiraahdo waan ku dayriyey oo kumaba dhalin oo dayraad iga tahay oo iguma abtirsan kartid adaa lagu yidhaahdaa waa marba haddaad i dhashay gogol igu dhashay xalaalna igu dhashay abtirka uma diidi kartid hal xaalad keliyatay sharcadu soo reebtay maxkamadda intaad tagto 5 dhaarood mar oo islacnad midda u dambaysa lacnad iyo cadho isku rid markaa inta aad marto maxkamadda aad marto markaa kadib uu ilmuhu abtirkaaga waayi karaa laakiin afkaaga iyo kuma dhalin iyo dayraad iga tahay adaa lagu yidhaahdaa way taa iyada marka abtirka ilmaha iyo nasabka iyo sharciyada in laga saaro aad bay u adkaysay sharciyadu in loo sugana way fududaysay oo sabab fudud haddii la helo ilmaha abtir in loo sameeyo waay ومن هذا الباب ay masaladani marka ka mid tahay oo ilmuhu maadaama uu niyad xalaalnimo uu ninkan ugu galmooday ilmuhu ilmo sharciyo way aabu u yahay laakiin nikaaxu sax ma wallahu a'lam جزاك الله خيرا شيخ سؤال أفر بغير الصدنات شيخ هو يدي يا ولا شيء ودمر وحي آمن سيهين إن يسن محرم لآن عمره أما حج آدي كريم وحينا يعط صدام إن المر والبراع أرنكاس أي آمن سيهين مصاحبنا أرنكا أي آمن سيهين واسيدة وكتصي ظاهر كحديث كالنبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم حلال أماها هويني الله يمان انت آخر الرميسا إني سفرت محرم لآن انت مركوير أيان نمبا سوبودا وحو رسولك إلهيو أنيقا وحان كقرناي دولان عيدا بحيان كميدا هان كقرناي حاسكيجينا حج بي أبحضي محان سميا دولان كهرو حاسكاغا راعو حجك ورعب رسولك صلى الله عليه وسلم مسألة سمركة ومسألة خلافية لكن ظاهر كحديث كاسيدة المامية علماء قار كم إذا ويقبان قارهان بذوك حنبليقة هي علماء كلبا ويقبان إن أينن هوين يدو حجين كرين أو أيسان عمريسان كرين محرم لآن واس خلافية وعلماء قار باسيدة سيكدوان قبا ما دام مركة أيقو أصل كا يكون دقين هو يدائي ولا شاء أصل صح يكون دقين يا ما دام خلاف كاسي أنا خلاف كاكومة شرني مسألة أصل كذا فريسانين نواسع سين أديك أنا واحد لو أجاب هي إن أد راعدو قارهان هذي هو يكو أمرتو صوما لأن هو يا أبو أمر كودا هدوسا مركا معصية هي وواجب صوما هو هذي كتر كالي حجك إيجي ما ديدي كرت أب هدوك يرادا كالي سفر كان إيرع ما ديدي كرتيد اللهم سفر كو إنه حاران يهي مويان أو وحخلد الله صعودا موي ساس دراديد هو يدا هدي كتيرا هدو كالي حجك إيرع ومحرم إيرنقو وإنا تراعدو هو يا أمر كيدا ما ديدي كرتيد والله أعلم جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك إلى سبحانه وتعالى شاهك والمريو أمريك يا عروتي عافمات كان الله وبركاته إننا الله ينقون فعو فالكاسين كتوجينا عاوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله